صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برنامج كوبع فكركaaga maanta waxa idin la wadaagi doonaa buugga ciwaankiisu yahay sida wada arkaysaan. Buugga ciwaankiisu waxa weeyaan How to Win Friends and Influence People. qoraaga buuggana waxa weeyaan Dale Carnegie. buugga waxa la qoray 1936 waxaana laga sameeyay ka badan 30 milyan oo koobi laga sameeyay. buugga wuxuu ka mid yahay buugaagta caalamka lagu iibsiga badan yahay, yani loogu saameynta badan, waxaana loo turjumay luqado fara badan. qoraaga buugga wuxuu doonayaa, yani wuxuu ku leeyahay sidaad u hesho ugu guuleysato saaxiibo fiican, sidaad u noqoto qof saameyn leh kana muuqda meesha uu joogo. haddii aad doonayso inaad kasbato, yani dadka kale saameynna ku yeelato, waxaa loo baahan yahay qodobo uu buugga sheegayo inuu ku soo koobay inaad qodobada aad raacdo aad samayso. laakiin qodobada aad bay u badan yihiin, waxaan isku dayi doonaa nal qodob halkan kusoo koobo. wuxuu ku leeyahay qodobka koowaad, si aad u noqoto qof saameyn leh kana muuqdana meesha uu joogo, kuna guulaystana in dadka kasbado, waxaad samaysaa buu ku leeyahay kow waa inaad noqoto qof dadka u mahadceliya, qof muujinaya inaad ku qanacsan tahay dadka wanaagga ay u sameeyeen una mahadceliya. labo, isku day buu ku leeyahay inaad ka fogaato inaad dhaleeceen ama inaad cambaarayso dadka kale. haddii ay laga maarmaan noqotona, isku day naftaada marka hore inaad cambaarayso qaladaadkaaga inaad sheegto, daatana qofka kale qaladaadkiisa inaad sheegto. ama waxaad samaysaa adiga qofka ammaanaya, wanaagiisa sheegaya, dabeetana qaladaadkiisa uu sameynaya u raacinaya. lambarka saddexaad, isku day inaad mar walba ama cid walba inaad u dhoola cadayso, mar walba inaad iska dhoola cadayso isku day buu ku leeyahay. sababta dad fara badan bay u bedelaysaa inay kuusoo dhawaadaan ay u bedelaysaa. lambarka afaraad wuxuu ku leeyahay isku day buu ku leeyahay inaad dadka magacooda xusuusnaato, aad dabeetana ugu yeedho qofka magaciisa inaad ugu yeedho. shan, wuxuu leeyahay isku day inaad noqoto qof dadka aada u dhegeysta, isku day buu ku leeyahay inaad noqoto. lambarka lixaad, isku day buu ku leeyahay inaad ku dhiirigeliso dadka kale in naftooda ka sheekeeyaan iyo waxyaalaha ay jecel yihiin ayuu ku leeyahay qoraaga buugga, iyo waxyaalaha ay xiiseynayaan. qodobka kale wuxuu ku leeyahay isku day haddii aad qalad samayso inaad qaladkii aad qirato. wuxuu ku leeyahay isku day inaad ixtiraam muujiso, inaad ixtiraamto qofka kaleeto fikirka ama qofka kaa soo horjeeda ama dadka kale aragtidooda siday wax u arkaan inaad qiimeyso, inaad respect samayso. isku day ayuu ku leeyahay. sababtoo qofka kale fikirkiisa hadaad wax ka sheegto, hadduu qaldan yahay hadduu saxan yaaba, mar walba waxba kaama soo kordhin, waxna kama helayso qofka inuu kaasoo fogaado mooyaane. halkaa buu kasoo gabagabeyn doonaa. la soco barnaamijyada kobci fikirkaaga soo socda. السلام عليكم ورحمة الله. وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر. صومالي وأفتخر، صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر.